كاس إسلامكو حالي هذا قبلها سوق كلامي عمرك بن آدمكو إلى اللحظة أيها أقوبة وحي كسر دم إسكيريين وستين وما بين 60 و70 لحظة كدانو قايبين عمرك هذا مثلا لباتن كهر وقبروا أبيه ذا وجوجا أبيه ذا كل هذا بيلك لباتن مركي جارتنا ولا جوسي أو نينك هذا هذا بيلك كل هذا أفرتن مركي جارتنا ويلكي يكون عرضتها أفرتن لباتن جير نقضي وذيك هدوها تاب وحسن نقضه ويلك وجوجا مركي لباتن لحظة يجارتي ويبدي ما تبع الله ونحرس مركي بيل عدلابا كم بصودا عيسبا مركزتا جعنتها لوهايا وحي أيضا أي جار ولا هنا جار كذا يسقى سنة يسا مسؤولية كانوا ولا جسية سداس نظام كأولسن شرعي سأود دكسن روح فرجلنا يا داعية أنا إلهي أقرون وحقوق السماينايا وحقوق دي إلهي سلاح هدمينا هنا أنا كأقانا روح أسواقف ولا وين معناها إلهي عد كتقانا مصلحة ضدك مجرو والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي بمصلحة دي نوك إذوكم ما قرنيسن ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير قضية لغا فيريا marka hal arin aan ku soo gabagay qadada laga fiirna rag iyo haweenka inaga muslimiin hadaan nahay gabdhaha waxa loo dhaqanaa inay bini aadam yihiin dad inay insaan inay yihiin gaaladuna waxay ula dhaqmaan haweenka insaaniyad kama fiirinayaan waxay ka fiirinayaan dhadignimo haween inay tahay dhadignimada marka waxa ka dhalanaysa inay ugu talagalayaan inay gabdhuhu u nidaamsanaadaan ama u habaysnaadaan ama noqdaan raali gelinta ragga markaas waxay u sameeyaan marka qaarkood tartama aad aragteen telefishin laga soo deena oo liyaado waxa lagu tartamay wax la yiraahdo boqorada quruxda yaa maamulaya oo fiirsanaya oo garsoora ka ah nimana meesha soo fariisinaya gabdhaha intii dhar khafiifa ama dhar la'aan ba laga dhigo ama dhar lagu dhadejiyo ama si kale oo waxa saf soo gala waa la idin kala bixinaya midda quruxsan yaa la markow la siinaya marka malikatul jamaal ayaa leeyahay boqorada quruxda la yiraahdaa waa marka lajnatu tahkiim garsoorihi halkaas soo fadhiya waa la fiirsanaya markaas intay soo galaan ayagoo isjijabinaya oo midba mid kale ay leedahay qanci ragaasi si ay kaalinta koobaad kaaga dhigaan ayay hormarayaan oo fiirsanay marka badeeco kale ka dhigan laakiin naga islaam hadaan nahay gabdhuhu waxay noo yihiin cirdi sharaf in la ilaaliyo ay tahay xushmad aadaab dhaqan wanaagsan is asturitaan ma aha looguma talagelin yani inay noqoto wax lagu raaxaysto oo kaliya ma islaamku haweeneyda ka soo qaadaya inay insaaniyada ama dadnimadka al insaniya rag iyo haweenku waa isku mid waxba kuma kala duwano haduu wiilku gabar dilo nafu goyso ma waxa la dhahay wiilku gabadha uma dhigantay maadaama waxa uu dilay gabar leh ay tahay asaga xabsi lagu xukumo ama la sii daayo maxay yeelay gabar la dilay ma la ma jirto haduu gabar dilo waa la dilaa وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس نفي النفو أي معناه marka laba kala duwan xagaas oo insaaniyad hada gabdhaha waxaan dhaynaa mesela meeqay boqolkiiba bini aadam yihiin boqolkiiba 90 boqolkiiba 80 wiilashuna meeqay boqolkiiba boqol ayaguna yihiin bini aadam boqolkiiba boqol bini aadam yihiin saasa ilaahay wuxuu leeyahay inni la udhi'u amala aamilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd nabiguna wuxuu sallallahu alayhi wasallam inma an-nisaa'u shaqaa'iqur rijal haweenku waa ragga dhinaciisi kale waa jeex adu jeexaaga ma had kala qaadqaade kun ka shilin lacagteena fiir kun ka shilin laba page iyo laba dhinac uu leeyahay wajiga hore iyo wajiga dambe muxuu kun ku yahay labada dhinacba inuu ka guduudan yahay ka war hadaa dhinac cadayno oo dhinac le ka guduudino oo aan kun kan shilin wax iga sii waa la fiirnaa dhinaca kale way caddahay ba maxaa jira hamay waa ku jeedo hore mu jeedo guduud waaye dhinaca kale uu cad yahay kan ma soconaa leeyahay sababtu maxay tahay dhinaca ka maqan insaanka lagu sheegay insaanku waa sida kun ka shilin oo kale oo laba dhinac leh rajulun iyo imraatun hal dhinac hadii la taabtiro dhinaci kale way burno labadii dhinac oo wada jira ayaa dad la isku yiraahdaa marka maxaa meeshan yaal islaamkeenu soo ixtiraamaya haweenka iyo meesha uu gaarsiiyay iyagu say karaan wax islaam ah nabiga sallallahu alayhi wasallam yaa ugu horumay awwal man amana billahi wa rasuulihi gabareed khadiija bint khuwaylid markii muslimiinta la cadaadinay ee la didilay ma markii la joogay ruuxii dhiigiisa looga hordaadiyay ee looga hordilay awwal shahiidin fil islam waa sumayya waa gabar waayadana marka mowqif raggu istaagay oo gabdhuhu joogay ma jirto marka way nagu isku diraan gaaladu waxay rabaan dhahan xaqi haweenka iyo xaqi ragga haweenka waa lagu xad gudbay haweenka waxa loo soo dhiibay marka bakoorad ama qool ama loo soo dhiibay waxa loo yiri marka ragga xaqiina qaatay xaqa idin ka maqane xaqini soo dhacsada markaas maanta dhan qaylo xaqa naga maqan waxa ka maqan muxuu yahay ma awaan hadaan nahay waana lagu xad gudbay oo Soomaaliya joognaaye yaa lagu xad gudbin soo ragga lagu xad gudbin inta rag laga dilay inta haween laga dilay yaa badan inta rag la dilaa badan
marka waxay in xaq rag loo doodo oo ragii waa la dhameeyay dagaal lagu dhameeyay ragii war ragga masaakiinta maxasan loo yeelaya laakiin gabdha bariga dagaal soo kay socdeen ya wal isdhamayna moogto wala salaynaya si la isu didilay qabaalku isu dilayeen maalinkii damba qabiila wuxuu dilay gabar waxa la maqlay marka maanta dagaalku meesha uu gaaray gabar la dilay markaas gabdhii waxay dhaheen maanta mu dagaal bilowday intuu ka bilowday meequu soo socday marka ayaga ay soo gaartay hal kamid markii la dilay waxay dhaheen maanta dagaal bilowday rag intii soo dhidmanayay ma tirinayaan marka meeshani wax xaq ah oo gaar ah oo gabdhaha hal dulmiyay hal laga qaata ma jiro wali idinku ma qeyb basheen shir rag ay isugu imaadeen oo la dhahay shirkan wuxuu ku saabsan yahay walaalayaal rag hadaynu nahay sidii aan u duudsi lahayn xuquuqda haweenka oo meel isaga saari lahayn shirkaas ay qayb galay cid ka qayb gashay ma jirto haweenka waa la faquuqay ku dhahay yaa faquuqay haweenku xagee ka imaadeen aabba ayaa dhalay ma jira aabba gabadhiisa faquuqay oo dhahay gabadhan waa in la karantiilo oo la faquuq waa karantiil moogtahay aabba gabadhiisa faquuqay ma jirto wiil walaal ah oo walaashi karantiilayna ma jirto nin islaantiisi xaaskiisi karantiilay ma jirto waxba la faquuqayda markan waa dagaal aan diyaar aynan u ahayn shaqadiisan aan lahayn oo la isku diraayo marka inaga marka waxaan leenahay quraanka la akhrisanayna rag iyo haweenku maxay isu yihiin fil islaam waxay isu yihiin innal muslimiina wal muslimat wa isasu soo ma jeed innal muslimiina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidina furujahum wal hafidati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات نتيجة قدام سبحانه قطي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما هل كان سنوضنا عنه أيضا وحي أوضان إنا يسيدي وحيابها مركي حفلة لقبه صعوبة فلورس وحن لإلهه صعب لغمو قرحية ماشي حفلة الغصة مينا ديكور على إلهه قبلها وحي كربان إنا ديكور كدكتان مركا وأوبها ماشي ديكور كله قبلها سوما ذلك ميلي يستاجين آيان مركا ديارات دي للراعود قبلها يكون بذين آيان ومحي كقبلان dadka si ay u qanciso oo diyaarada ay u soo raacaan war ma badeeca la gadaayo haweenku xageed wax u wadaan marka wixii way isku dhax gadaayaan innaguna waxaan rabnaa cirdi iyo sharaf iyo qiimo aad Allah lahu maghfiratan wa ajran azima gabdhaha meesha islaamka ka gaareen khadiija bint khuwaylid radiyallahu anha malaku jibriil ayaa nabiga u imaaday markaas wuxuu ku yiri rasuulka ilaahayow khadiija waxaad gaarsiisaa ilaahay baa soo salaamayay intay leegtay ilaahay baa ku soo salaamayay halkaas aan gabdhuhu inay gaaraan ayaguna maxay rabaan ina dhulka ku rafiyaan ayaga dhulka ku rafinayay ee saa u galay ay hadana waxay leeyihiin muslimiintu haweenka uma roono way xaqirayaan Soomaaliya kuma xidhaan waxay carab intay ku nabto ay rasuul ay nabiga kaaga hormartaa ma qad afka carabiga ku raadaan nabiga carabi maadaama waa carabiga yaqaanan nasad carabi intay ku nabto ay nabiga kaaga hormartaa marka hada waxaan gaaladii intayna nabaan oo gabdhihi ay duleystaan oo ay alaab iyo badeeca ka dhigaan inagii muslimiinta ahayn ee halkaas gaarsiinay ee nabigu sallallahu alayhi wasallam gabdhaha ma karaameeyo ma sharfo ilaa qof sharaf badan ma ogi qofkii laba gabdhood koriya jannada ayuu ku galay naartan xijaab ay uga ahaanayaan halkaas khiyaarukum ka idin ku akhyaarsan wa khiyaarukum linisaa'ihim kuwa haweenkooda u akhyaarsan halkaas inagii ahayn hadana waxayna leeyihiin maalinta 8 maars xuquuq baa maqan la soo dhiciyo war 8 maars xuquuqna kala maqan anaga xuquuqdeena kitaabkeena quraanka inoogu dhanta dayacaad haday imaato islaamku shaqo kuma leh cidii dayacada loo haystaa waxaana lagu xisaabin karaa kitaabkeena iyo diinteena hadii la akhriyo oo laga keeno maxay ahayd dulduleel ama saas ah diintiina meeshaas ay dulal ka qabtaan la soo dhaho lama haayo